haddii aad tahay qof iskala ganacsi ama hal ganacsi wax ka badan waxaad ogaataa sababaha dawaqa iyo jahwareerka kugu keenaya hadday noqoto dhanka maamulka maaliyadda ganacsiyadaada kaa soo gelaya iyo ka shakhsigaaba waxaa kow ka ah inaanad kala saarin ganacsigaaga iyo naftaada waxaa laga yaabaa waxyaalaad isticmaalayso inaad u isticmaasho si shakhsiya adigoo ganacsigii kala baxaya waxaa kaloo laga yaabaa inaanad lahayn personal budgeting adiga ku gaara yani waxaweyaan kharashaad adigu aad bishii kugu baxaya oo kuu qorshaysan iyo waxaweyaan lacag ku soo gelaysa inaanad kuba xisaabtaminba si khaasa kuu soo gelaysa marka laga yimaado yani ganacsiga waxaa kaloo laga yaabaa in ganacsigaaga laftigiisu aanu lahayn strategic plan amba waxaweyaan waa qorshe istraatiijiya oo uu kaga gudbo caqabadaha ku gadaaman haddaba haddii aad xaaladda ku sugan tahay waxaad ogaataa laba shay baa kaa qaldan hal shay waxa weeyaan naftaadii ahayd inaad ka shaqayso hadday noqoto caafimaadkaaga iyo fikradaada iyo waxaweyaan qorshayaashaada shakhsigaa ayaan ku nidaamsanayn oo iskaga kaa dhex daadsan qodobka labaadna waxuu yahay ganacsigaaga laftigiisu maaha ganacsi ku dhisan qorshe ku dhisan waa ganacsi aad bilowday aanad waxaweyaan wax qorshaa u samaynin keliya taad ku dadaalaysa qaabkeed uga samayn lahayd faa'iido walow ay wanaagsantahay inaad faa'iido samaysaa haddana haddii aanad ganacsi ku lahayn istiraatiijiyad jahwareer badan baad kala kulmi doontaa iyo caqabad badan mararka qaarkood aad garan waayi doontaba meelaad u socoto iyo meelaad ka socoto haddaba caqabadahaasoo dhan sidaad u xaliso waxaan kuu diyaariyey fursad aad kaga mid noqon karto tudaale online business mentorship programkani waa program aan si khaasa ugu talagalay oo aan waxaweyaan xoogga ku saaro sidii dhalinyarada ganacsatada ama business ownerska rag iyo dumarba ay u noqon lahaayeen kuwo horumara shakhsi ahaan iyo business ahaanba inaad shakhsi ahaan horumarto iyo inaad business ahaan horumartaana qolba aad u kala duwan mararka qaarkood waxaad ogaataa qaabkaad u eg tahay uu ganacsigaaga u ekaanaya haddii aad nidaamsan tahay ganacsigaagaas u nidaamsanaanaya haddii aanad nidaamsanayna ganacsigaaga ma nidaamsanaanayo inta badan dhalinyaro fara badan oo ganacsataa waxaa ka saaciiday inay dhigtaan qorshe iyagu shakhsiya oo ay leeyihiin hadday noqoto dhanka maaliyadda iyo hadday noqoto dhanka kale horumarkaba sidoo kale waxaan u dejiyey waxaa la dhaha strategic planka amba qorshaha guud ee ganacsiga istraatiijiga ah kaasoo ka fududeeyey habacsanaan badan oo ku jirtay inay ka baxaan xooggana saaraan wax soo saarka halkii ay ka saari lahaayeen jahwareerkii dawakhaada haddaad xiiseynayso inaad kusoo biirto fursaddan waa fursad bannaan waxay furantay toddobaadkan oo keliyaata isa soo diiwaangeli si aad qayb uga noqoto isbeddelka iyo horumarka iyo waxaweyaan garab istaagga aan ku samaynayo dhalinyarada ganacsatada ee soomaalida